أنا علي أو ريبوترada kamida ilaa goorma ay sii socon doontaa in madaxweyne Farmaajo uu la hadlo kameradiisa gaarka ah ee muuqaaladan la soo jarjaro wariyaashu sidoo kale ilaa goorma ay fursad u heli doonaan in si daahfuran ay su'aal u weydiiyaan madaxweynaha maadaama ay wakiil ka yihiin shacabka Soomaaliyeed labadaas weydiina waxaan rabaa inaan u gudbo su'aalihii uu weydiiyay walaalkii Cali Aadan mid kood waxay ahayd meeqa kamerada madaxweynaha kaligeed waxay soo duubtay la faafin karaa Cali Soosaas ma ilaa muddo intee laag waxay sii soconaysaa intaan aniga agaasimaha ka ahay meesha sababtan waa idin sheegaya ma jirto meel ay kamerooyin iska dhex dabaalan karaan adduunka madaxtooyo walba waxay leedahay security protocol aniga security protocol-kayga waxa waaye albaabada idin furay markaan meesha imid xafiiska madaxweynaha hortiisa live laga galay Facebook live يعني qofkii meesha soo galay hore laga wacay waxa la leeyahay general hebel hadda soo galay يعني meeshii qofkii xogta soo doonta wuxuu tabinayaa oo ka dhex tabinaya meesha wuxuu rabo annaga marka madaxtooyada protocol-ka noo degsan waxa waaye wixii event oo meeshaas ka dhacayo oo madax noo timaado oo foreign dignitaries noo timaado culeyskeeda wadataa waa ognahay waxaan ku qasbanahay access inaan idin siino waxaan ku qasbanahay inaan wadooyinka idin fududeyno waxaan ku qasbanahay inaan basas raadino oo idin soo daabulno oo meeshii madaxweynaha iyo madaxdaas kale ay ku qaabilayeen inaad nala joogtaan waxaan kale ku qasbanahay hadduu madaxweynuhu shir jar aad qabanayna inaan idin kugu yeerno oo xogtiisa saartan u tabisaan laakiin madaxweynaha hadduu safiir warqad ka qabanayo maadaan kugu yeeraa ma kugu yeeraayo madaxweynuhu hadduu laba oday la shiraayo ma kugu yeeraya waxaan aniga qaban karo inaan ka duubo oo ku soo gudbiyo iyo inaad maanta cadceed ii taagnaato oo laba kalmood inta duubato xitaa aan lagu siin the right reply oo wax jawaab helin adiga keedan kugu jirtaa annaga protocol-ka hadda noo degsan waxa waaye madaxweynuhu haddii uu shirar ka qayb galaayo oo ugu horeysay shirarka amniga qaranka oo madaxda la galo haddii ay foreign dignitary soo booqato haddii ay xaflad ka jirto meesha oo munaasabad lagu qabto intaba idin yeerayna laakiin waxyaabaha yar-yarka ah ee madaxtooyada ka dhaca wax walba ma baahnin inaan cid ku invite gareyno nidaamkaas aan noo degsan waana ku sii dhaqmaynaa intaan aniga meesha agaasimaha ka ahay tan kale la xiriirta madaxweynaha su'aalo ma la weydiin karaa madaxweynaha su'aalo waa la weydiin karaa waana la weydiin jiray interview uu bixiyana way jiraan laakiin waxaa laga yaabaa Cali inuusan siinin Xasan inuusan siinaa suuragala haddaad rabteen madaxweynaha issue walba oo wadanka ka dhacay inuu ka hadlo ayadoo wasaaradda arrimaha dibadda joogto ayadoo wasaaradda arrimaha gudaha joogto ayadoo booliisku joogaan ayadoo hay'adihii dhan ay shaqaynayaan oo shaqada wadanka ka socoto dhan madaxtooyada inta lagu soo koobo madaxweynuhu ka jawaabo taas ma dhacayso waxayse ku dhici karin madaxweynuhu waa hal qof waa ilaaliyaha dastuurkan waa astaan midnimo wixii asaga khuseeyo oo ka baxsan hay'adahaas uu ka jawaabi karaa laakiin shaqo ay wasaaradda arrimaha dibadda qaban karto oo wasiirkeedu qaban karo ama wasiirka arrimaha gudaha uu qaban karo ama taliye bariis uu qaban karo madaxweynuhu kuma khasbana qarax xamar ka dhacay inuu ka hadlo kuma khasbana wax South West ka dhacay inuu ka hadlo wasaarado iyo dad la shaqeeya jira marka sida xukunku u daadegsan yahay oo hadda hay'ad walba ay u shaqeyso ayaan amuur kasta oo wadankan ka jirto oo loo baahan in laga falceliyo ciddii ku shaqo leh oo shaqada iska leh ka falcelin karta marka qaar anaa ka hadla on behalf of the president waxa aan sheegana waxa laga yaabaa dadka inay dhahaan maya adiga waxba nooma sheegay sida madaxweynuhu inuu baasaboorkii iska dhiibay suuqa soo istaaga asaga ha sheego Nairobi markuu tagay inuu Uhuru badda kala hadlin adaa noo sheegay kaama dhageysanayna asaga noo sheego oo ani maxaan u shaqeeyaa haddaan ku sheegay maxaan meesha u joogaa marka waxaad xaq u leedihiin wax walba oo wadankan ka dhacaaya inay dawladdu idinkaga jawaabto inay xukuumaddu idinkaga jawaabto in hay'adaha ku shaqada leh ay jawaab idin ka siiyaan laakiin wax walba inuu madaxweynaha ka jawaabo xalna ma aha shaqada hadda socotana uma roona qofka shaqada iska lana qof macna tirano wuxuu noqonayaa magaciyaala marka su'aashaas intaas aan uga jawaabi lahaa